waa hagaagi makana kheertana dhegeysanaysaa waa barnaamijkii kaca oo ka dhiidhiya dulmiga waa kan ismaaciil ibraahim ducaale aftaag dhegaystayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudano waxaa haatan idinku soo maqan barnaamijkeenii kaca oo ka dhiidhiya dulmiga waana barnaamij aad nooga barateen inaannu toddobaadkiiba hal mar idiin soo baahino halkaaad nagala socotaana waa idaacadda madaxa bannaan ee codka Khaatume State of Somalia. dhegaystayaal barnaamijkeennan kaca oo ka dhiidhiya dulmiga waxaannu inta badan ku soo qaadanaa waxyaabaha ka soo cusboonaada deegaanada Khaatume State of Somalia. mararka qaarkoodna waxaannu isku laba rognaa arrimaha markaasi ka aloosan gudaha maamulada looga arrimiyo magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe. dhegaystayaal toddobaadkan haddii allaha awoodda leh oggolaado waxaynu ku falanqayn doonaa halkeebay marayaan maamul samayntii gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ilaa haddase maxaa ka qabsoomay maamulada Garowe iyo Hargeysana wax luga ma ku leeyihiin howlaha baaxadda weyn leh ee ka socda magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. muxuuse ka yidhi Cornel Sandon oo aan khadka telefoonka ku waraystay. waxaa kaloo aynu isla toddobaadkan ku xusi doonnaa go'aamo ay si wada jir ah u gaadheen isimada dhaqanka ee maamul goboleedka Khaatume State of Somalia kadib markii uu soo kala dhex galay madmadow iyo inay qaarba meel u yaacaan inkastoo ay jiraan qaar aan halkoodii ka dhaqaaqin. sidoo kale waxaynu in cabbaara isdul taagi doonnaa arrimaha ka soo cusboonaaday isimada dhaqanka ee maamul beeleedka SNM oo loogu baaqay inay ka soo qayb galaan shirweynaha ka dhici doona waddanka Turkiga. dhegaystayaal Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ooda dhacmeed sida u kala koreeyaan baa loo kala guraaye isimada dhaqanka ee maamul goboleedka Khaatume State of Somalia markii ay soo afjareen arrimihii la isugu yimid deegaanka Hoore waxay galeen kulan aad u ballaadhan oo dhexdooda ah. haddaba kulankaasi ay yeesheen isimada dhaqanka ee beelweynta Dhulbahante waxay soo saareen go'aamo run ahaantii si weyn u farxad geliyey shacabweynaha reer Khaatumo ee ku dhaqan dunida daafaheeda. isimadu waxay caddeeyeen wixii khilaaf u dhexeeyey gudahooda inay xalliyeen kana heshiiyeen. waxaa kaloo ay isimada dhaqanka ee Dhulbahante warbaahinta madaxa bannaan u sheegeen inay diyaar u yihiin wax ka qabashada wixii khilaafaad iyo madmadow ee soo kala dhex galay beelweynta Dhulbahante ee ku nool dunida daafaheeda. waana kuwan go'aamadii wax go'oolka ahaa ee kulankoodaasi ka soo baxay. bismillaahi raxmaani raxiim. ku ciddii ay khusayso meelahooda ujeeddo midayn iyo talayn shir wada tashi ah oo ay isugu yimaadeen isimada Dhulbahante taariikhdu markii ay ahayd 10kii bishii 11aad 2015 ilaa 22kii bishii 11aad 2015 kuna saabsanaa in qowmiyadda Dhulbahante ka midoobaan muruqa maskaxda iyo maalkaba si loo gaadho danaha ay leeyihiin. sidaasi daraaddeed markay isimadu arkeen baahida loo qabo wada tashi iyo midnimo markay tixgeliyeen duruufaha adag ee lagu jiro
arkeen in maanta loo baahan yahay xal waara oo lagu midaysan yahay haddaba waxay isimadu isla garteen kuna heshiiyeen qodobadan hoos ku qoran number 1 ama number 2 waxay isimadu ka heshiiyeen wixii khilaaf ah ee dhexdooda ka jiray guud ahaan iyo gaar ahaanba number 2 sidoo kale waxay beelweynta dhulbaahante ugu baaqayaan in ay u midoobaan maslaxadda ummadooda gudo iyo dibadba number 3 in wixii khilaafaad ah ee beelaha u dhaxeeya lagu xalliyo wada hadal iyo heshiis taam ah number 5 waxaanu xambaaraynaynaa dilka barakicinta caburinta xorriyadka qaadka maamulka Somaliland ku hayaan deegaanada iyada ay xaqdarrada ku haystaan waxaanu kale ugu sheegaynaa in ay kala baxaan ciidamadooda si nabadgelyo ah number 5 waxaanu gaarsiinaynaa caalamka in ay indhahooda ku soo arkaan horumar la'aanta ka jirta deegaanadaas dhinaca arrimada bulshada wixii loo qoondeeyeyna aanay waxba ka soo gaadhin wabilaahi tawfiiq xubnayahow guntaday xilka guud ka saaro xubnayahow guntaday dhergaratadaamo xubnayahow ninga caaliyo gayigoodu jeceliyo kama xubnaha diidee dadkoodii angabino dhegaystayaal bal iminkana aynu u gudubno qodobkeenna labaad magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya waxaa si dardar leh uga socdaa shirarkii ku saabsanaa midaynta iyo maamul samaynta Maakhir State iyo Khartoum State waxaana barnaamijkani gadaal ka riixaya dowladda Mareykanka oo doonaysa inay wax badan ka qabato deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn. dhinaca kale waxaa iyaguna soo baxbaxaya kooxo asal ahaan ka soo jeeda deegaanada SSC balse u adeegaya maamulada Hargeysa iyo Garowe waxaanay doonayaan inay qas isku dir iyo tashuush ku furaan howlaha baaxadda weyn leh ee halkaasi ka socda. dhammaan kooxahan caloshood u shaqaystayaasha ah ee u adeegaya maamulada Hargeysa iyo Garowe waxay toos u aadeen safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi waxaanay halkaasi kala soo kulmeen ceeb aad u baaxad weyn iyo wejigabax waxaana u xaqiiqowday inaanu xaalku ahayn sidii ay moodayeen. haddaba fadeexaddii iyo foolxumadii ay kooxdaasi yari kala huleeleen goobtii safaaradda Mareykanka waxaa isaguna ka hadlay Colonel Sandon oo isagu ku sugan waddanka Ingiriiska wuxuuna qaswadayaashaasi ugu goodinayaa in gacan bira lagu qaban doono haddii aanay soo raacin tareenka dhaqaaqay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa arrin yar oo hadda maamul samaynta maamulada Khartoum iyo Maakhir oo hadda ka socota Nairobi ama dibadahaba hadda laga wadwado oo dad gaarahi maxay ahayd wadadii saxda ahayd ee isleeyihiin dadka indhahooda ka weeciya waxa weeye annagu haddaanu reer Khartoum nahay maamulka ka mas-uula masiirka dadka uu marayo ama cid la hadlaysa ama wada hadal ama heshiis maamulka ka wakiila cidduu u dirsanayo annaguna wixii tala ah kama maqnin waanu soo dhowaynaynaa ciddii wax tabanaysa sida madaxweynuhu u sheegay waxa weeye waanu la fadhiisanaynaa waanu tabashadooda wixii dantu inoo ku wada jirto cidina ma diidayso laakiin waxyaabaha hadda Nairobi aanu ka maqlayno ama dee ka socda ragga qaarkii wado
aad moodo arrimo muddo hore shaqayn waayey in maanta la rabo in iyadoo halgan dheer la soo galay oo naf iyo maalba leh maanta in wax daciif ahoo ama reeraysi ama gurubaysi la rabo ummadda khaatumo in lagu kala dhantaalo taasi mid soconaysa maaha khaasatan gruubka kan hadda la leeyahay halka ka tegay oo nugaasha hoose lagu sheegaya dhibaatada ugu badan wada waanu la soconnaa nin kastaba inaayadiisa iyo waan naqaanaa waa garanayna hadday ka waantoobi waayaanna waxaannu samaynaynaa inaannu dagaal toosa la gallo oo aannu magacooda iyo dhibaatada nin waliba dadka ku hayo aannu horkeenno ummadda gacanna kaga shaqayno waayo waxa weeye qofka bini'aadanka hadduu xishoon waayo oo uu dadka ka xishoon waayo aakhirka waxay tegaysaa inaannu gacan bilays kaga qabanno waayo ummadda dhibaato intaa ka badan ma rabna inay ummaddu ku socoto waxaan leeyahay ka waantooba dadkii nagu soo noqda la tashada annagu wax gaara ma wadanno madaxweynihiinna iyo wasiiradiinna iyo ummaddiinna u kaalay iyo dadkiinna waxgaradka iyo ismadiinna iyo culimmadiinna ha laysu wada yimaado ninkii wax gaara ama wax kale sheegaya hal iyadoo golaha la wada fadhiyo ha laga wada hadlo laakiin marba inta cadow gacanta ka soo taabto in la yidhaahdo maxay hayteen shir baa meel lagu qabanaya sidanay tahay war waxaasi wax soconaya maaha laga waantoobo waxaan ku soo gunaanadaya ninkii isidhaahda wax dhibaatay ama majar habaabi ogaada inaanan dib dambe ugu dulqaadan doonin gacan bilaanna ku qabanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xubnayahow guntadae xilka guud ka saaro xubnayahow guntadae dhergaratadaamo xubnayahow ninga caaliyo gayigood jeceliyo gama xubnaha diire dadkoodii angabino dhegaystayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaan intaasi ku soo afjaraynaa barnaamijkeennii kaca oo ka dhiidhiya dulmiga waxaa isku soo dubariday islamarkaasina idinla socodsiinayay anigoo ah ismaaciil ibraahim ducaale aftaag waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo guud ahaan kheertana dhegaysanaysa intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka idaacadda wadaniga ee codka khaatumaystayd anigu axmed baad la socodsiinaya intaan barnaamijkan keesi xiga ku kulmi doono haddii rabiidma intaasiyo nabadgelyo